Waxaan ku bilaabayaa magaca Eebbe, naxariista guud iyo mid gaar ahaaneedba naxariista. Mahad idilkeed Eebbe weyne u sugnaatay. Nabadgelyo korkiina ha ahaatay naxariista Eebbe wacnaan idilkiinba meel walbo aad dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada barnaamijkeena maanta oo aynu kusoo qaadan doono xigmadaha Eebbe weyne ka mid ah. Qisooyinka iyo xigmadaha Eebbe weynena waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu cibro qaato. Nebiyada Eebbe ka mid ah ayaa maalmaha ka mid ah wuxuu u fadhiistay meel taag ah oo sida buurta oo kaleenta ah. Taagaasi ama buurtaasi hoosteedana waxa ay ahayd meel ay biyaha maraan, dadkuna ay ka cabaan. Waxaa soo maray meeshaasi ay biyuhu maraan nin fuushan faras oo sito jawaan ee lacag ku jirto. Wuxuu cabay biyihii wuuna dhaqaajiyay. Wuxuu iloobay jawaankii lacagta ee uu sitay. Waxaa yimid meeshii haddana wiil yar oo dhalinyaro ah. Asna wuu ka cabay meeshii waxa uuna arkay jawaankii lacagta ee ku jirtay wuuna qaatay. Kolkuu tegay wiilkii waxaa yimid meeshii haddana oday duq ah oo waayeel ah oo raba inuu meesha biyo ka cabo. Waxaa soo laabtay ninkii faraska saarnay oo soo xasuustay inuu jawaankii lacagta ee uu sitay uu kusoo iloobay meesha uu biyaha ka soo cabay. Waxa uuna ugu yimid odaygii waayeelka ahaa. Waxa uuna ku yiri isii jawaankii lacagta ee aad halkan ugu timid. Odaygiina wuxuu yiri ma aan arag jawaanka aad sheegayso. Ninkii inta uu xanaaqay ayuu odaygii qoorta ka gooyay. Subxaanallah. Goobtana waxaa joogay nebiyada Eebbe weyne ka mid ah oo aanan la sheegin. Kadibna wuxuu Eebbe weyne weydiiyey xigmadda ay arrimahaasi u dhacday. Wuxuu yiri Eebbe, wiilka dhalinyarada ah ee qaatay jawaanka ee lacagtu ku jirtay asaga ayaa dhaxal u leh, oo ninka faraska fuushana ayaa hadda ka hor wiilka yar aabihii ka xaday lacagtaasi. Sidaa ayuuna Eebbe ugu celiyay wiilkaasi dhaxalkii uu aabihii ka tegay. Odayga waayeelka ah asna hadda ka hor ayaa waxa uu dilay ninka faraska fuushana aabihii. Asna sidaasi ayuu aabihii ugu qisaasay oo weliba uu gacantiisu ku qisaastay. Horeyna uma uunan garanaynin qofka dilay aabihii. Taasina waxa ay ku tusinaysaa xigmadda Eebbe weyne ee la xiriirta waxa inaga qarsoon oo aynaan garanayn. Eebbena waa kan og waxa muuqdo iyo waxa qarsoon labaduba, halka aynu annaga aragno waxa inoo muuqdo oo keliya. Cumar bin Khadaab Allah ka raali noqdee wuxuu yiri naxnu naxkumu bidawaahir wallahu yaxkumu bisaraa'ir. Guntii iyo gabagabadii barnaamijka dhagaystaha daawadaha qiimiga badano ha ku salaynin wax waliba ee dhacayo amaba dhacay waxa adiga kuu muuqdo oo keliya. U daa wax waliba Eebbaha og xigmadda uu ka leeyahay wax waliba ee dhacayo. Subxaana rabbika rabbil izzati camaa yasifuun wa salaamun cala almursaliin walxamdu lilaahi rabbil caalamiin.